kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamij wareedkeena qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka ah ciidamada Ruushka waxa ay bilaabeen inay biliqaystaan goobihii muhiimka ahaa ee bulshada bariga Ukraine ku nooleed magaalooyinka ay qabsadeen dhammaan waxay ka qaateen agabkii yaalay haddaba qaar ka mid ah dadka ka soo jeeda bariga Ukraine gaar ahaan magaalada Severodonetsk ayaa arkay iyaga oo biliqaysanaya isla markaana gawaarida dagaalka ku soo rartay hanti ay leeyihiin dadka ka soo jeeda Ukraine haddaba falanqeyn ayaan ku sameyn doonaa war ka soo yara dawladda Britain iyana waan eegi doonaa qaxootiga Ukraine ee ku sugan wadanka UK ayaa sheegay inay aqoonsadeen alaab ay lahaayeen iyo goobo ayagu ay lahaayeen hanti u tiilay oo ay soo biliqaysteen ciidamada wadanka Ruushka oo ay ku soo rarteen dangiyada dagaalka iyo sidoo kale gawaari ay wateen Alena Koreneko ayaa sheegtay in sanduuqa sawirka ku jira uu ka kooban yahay waxyaabo iyadu laga soo biliqaystay ee ay lahayd taas oo durbaba dhalisay shaki ballaaran iyada oo loo isticmaalayo aragtiyo muhiim ah iyo qorshayaal kale oo lagu doonayo in lagu bahdilo shacabka reer Ukraine dadka martida haddaba ah waa Ruushka lagala jeeda waxay bilaabeen inay boobaan oo ay dhacaan hantida shacabka ay leeyihiin taas oo durbaba ka dhigan in Ruushka markii ugu horeysay lagu eedeeyo in uu biliqaysanayo hanti ay leeyihiin dadka reer Ukraine maxay ka dhigan tahay arrintan waxa ay la mid tahay xasuuq ka dhaca wadanka Ukraine gaar ahaan xasuuqii lagu eedeeyay in ciidamada Ruushka ka geysteen magaalada Buja oo duleedka ka ah magaalada caasimadda ee Kiev haddase waa markii ugu horeysay oo lagu eedeeyay ciidamada Ruushka inay wax biliqaystaan eedeyntii kol hore jirta waxay ahayd in ay burburiyaan dhismayaasha goobaha muhiimka ah ee bulshada loogu adeego sida goobaha waxbarashada isbitaalada iyo ganacsiga si la mid ah waxa lagu eedeeyay in ay dad toogteen oo ay ku dileen wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee ku yaala Ukraine balse hadda sheekadu waxay maraysaa in hantidii iyo ganacsiyadii ay biliqaysteen oo ay ku rarteen gawaarida dagaalka oo ay wataan iyaga waxaana arrinkaasi xaqiijiyay qaar ka mid dadka reer Ukraine oo laga daadgureeyay wadanka Ukraine lana gaarsiiyay wadanka Britain dhanka kale midowga Yurub waxa markaan ogolaanayaa qorshayaal halis ah oo uu ku doonayo in uu ku baabi'iyo heshiisyo istaraatiijiyadeed oo ay dhinacyadu gaareen durbaba waxa soo ifbaxaya in xaaladdu ay isbedeli karto qorshayaashu ay isgedin karaan xaaladuna ay taagnaan karto meeshii kol hore ay taagneed Ruushka hadda waxa uu qorsheynayaa in istaraatiijiyad cusub uu la yimaado oo ku aadan isaga qaabku wax u wajaho ama uu isagu u aado dhinacyada isaga ka soo horjeeda dad badan ayaa aaminsan in Ruushku uu iska bixin karo waxyaabaha ka haysta ama dhibaatooyinka ka haysta wadamada reer galbeedka isla markaana uu isaga fulan yahay qiimaha shidaalka ayaa kor u kacay waana sababta loo haysta wadankan qiimaha shidaalka waxa uu sare u kacay kadib markii madaxda midowga Yurub ay ku heshiiyeen in Ruushka laga mamnuuco soo dejinta shidaalka saliidda loo yaqaan Barantiga ayaa kor u kacday oo halkii fuusto ayaa gaartay $123 maalintii Talaadada ahayd ee shalay waana heerkii ugu badnaa ee uu gaaro muddo 2 bilood ah qiimaha saliidda iyo gaaska oo sare u kacay balihii la soo dhaafay taasi waxay uga sii dareen dagaalka Ukraine shidaalka ceeriinka ee Barant loo yaqaano ayaa kor u kacay in ka badan 70% sanadkii la soo dhaafay cunaqabateynta Ruushka ee ay ku soo rogeen midowga Yurub ayaa hadda uga sii dartay xaaladda 40% qiimaha saliidda midowga Yurub ayaa mar kale kor u sii kacday Ruushka ayaa 27% soo saara saliidda ay isticmaalaan wadamada EU-da la yiraahdo ama Yurub la yiraahdo ama midowga Yurub waana arrin kale oo suuragal ka dhigi karta in mar kale ay dhibaato ay la kulmaan haddaba Ruushku miyuu isaga filan yahay eedaha kaga imaanaya reer galbeedka mise waxa uu weli indhaha ku hayaa waxa ka imaan kara dalalkaasi maadaama uu isagu qaatay go'aan ah haddii ay reer galbeedku qaataan mid la mid inuu qaadanayo dhanka kale ciidamada Ruushka ayaa la sheegay in lagu maxkamadeeyay wadanka Ukraine maxkamad ku taala Ukraine ayaa 2 askari oo Ruushka ku xukuntay 11 sano iyo bar oo xabsi ah kadib markii lagu helay inay geysteen dambiyo dagaal Alexander Bobekin iyo Alexander Ivanov ayaa qirtay dambiga lagu soo oogay ama lagu eedeeyay labada ninba waxay ka tirsanaayeen cutubyada dhanka madaafiicda ah waxayna duqeeyeen iskuul ku yaala waqooyi bari ee gobolka Kharkiv ee wadanka Ukraine qareenada u doodaya labada nin ayaa ku dooday in raggan ay fuliyeen awaamirta madaxdooda laguna qasbay in dambigan ay galaan
balse maxkamaddu waa ay diiday doodaasi oo ay ka soo horjeesatay. Maxkamadeynta noocan ah tii labaad oo Ukraine lagu qabta ayay noqonaysaa tan markii Ruushku kusoo duulay Ukraine. Kol hore askari 23 jir ayaa la xukumay, haddase waa laba kale, 3 ayay maraysaa. Markan xaaladda ayaa ku sii adkaanaysa, waxaana qayb ay ka noqonayaan arrimaha ugu muhiimsan ee dhibaatada ugu badan ay ka taagan tahay, iyada oo ay qaadanayaan shacabka reer Ukraine dhibaatooyinka ay ka dhaxlayaan waxa ka socda. Waxaa sidoo kale la warinayaa in xaaladdu ay ku sii adkaan karto maalmaha soo aadan. Dhinac walba oo ka soo horjeeda waxay u muuqataa in ay dhibaatadoodu dhaxal ahaan u heli karaan oo ay dhaxli karaan wax walba oo saameyn ku yeelan kara noloshooda. Dhanka kale, dhibaatooyin badan ayaa ka taagan bariga Ukraine. Waxaa la soo warinayaa in dagaalo culus ay ka socdaan, haba ugu darnaadaane magaalooyinka Zaporizhzhia iyo sidoo kale Kherson oo ah magaalooyinka ku yaala koonfurta iyo bariga waddanka Ukraine. Waxaana la soo warinayaa in Ruushku uu shabakadaha internetku ka bilaabay inuu dhaco gobolka Kherson iyo sidoo kale gobolka Zaporizhzhia oo hadda gacanta ay ku hayaan ciidamada Ruushka ayaa u wareegay dhanka taleefanada gacanta iyo internetka, waxaana loo wareejiyay dhanka Ruushka si loola socdo dhaqaaqa dadka halkaasi ku sugan. Sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dowladda ee RIA loo yaqaano, waxay soo xigatay la taliyaha madaxa siyaasadda ee macluumaadka ee Moscow oo ku rakibay dhulka la qabsaday Crimea internet cusub iyo sidoo kale isgaarsiin cusub si loola socdo dhaqaaqa dadka halkaasi ku sugan. Dhulka la xoreeyay hadda waa dhul aan internetka hore looga isticmaali karin dhanka Ruushka, balse laga isticmaali jiray internetka dowladda Ukraine ay bixiso. Haddase isgaarsiinta internetka Ruushka oo kaliya ayaa dhab ahaantii laga isticmaalaa. Tanina waa dhammaadka dacayadda Ukraine. Munaaradaha beenta ah oo Zelensky uu ku dulmin jiray Ukraine waa Ruushka, ayuu mar kale yiri duqa magaalada. RIA ayaa ku waramaysa in maamulka militariga ee rayidka ee Kherson ay qabsadeen Moscow ay weydiiyeen inay isticmaali karaan awoodda shirkadaha isgaarsiinta Ruushka si ay u soo celiyaan isgaarsiintii gacanta ee gobolka. Codsigan ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii ay duqeymo ka geysteen ciidamada Ukraine ay sababtay in shabakadu hawada ka baxdo. Ciidamada Ruushka ayaana bartilmaameedsaday shabakado dhowr ah oo isgaarsiineed iyo kuwa internet oo ay baabi'iyeen. Marka loo eego goobaha duqeymuhu ay ka dhaceen, inta badan ciidamada Ruushku waxa ay bartilmaameedsadeen goobaha istiraatiijiga ah oo ay u arkaan in saameyn ay kaga imaan karto, balse waxa lagu eedeeyay in ay baabi'iyeen goobo muhiim ah oo aanu sanado la soo dhisi karin, gaar ahaan dhismayaal istiraatiiji u ahaa dowladda waddanka Ukraine. Ukraine waxay ku baaqday in malaayiin doolar loogu deeqo si ay mar kale u samayso tallaabooyin dhismayaal oo ay ku dhisayso goobo istiraatiiji ah oo ay burburiyeen ciidamada Ruushka. Ilaa iyo haddase wax jawaaba dunidu kama aysan soo saarin oo waxay la dacaalayaan in ay siiyaan hub iyo sanad military si ay isaga difaacaan ciidamada ka soo horjeeda ee Ruushka. guudaan saaxiibayaal, halkaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaamij wareedkeena tan iyo qaybta kale intaanu ku kulmi doonno. Sidaa iyo nabadgelyo.